أنك إسكال أود واحد اسمها أنك هذا سنينا يلا يدين شاكين دولة دولة فشلنتي ويكون فشلنتي ويكون عريسنتي نجمع إيمان كرته وجهي الدبولان يسا هل كميت أن نسيب دردا أن كنت المامي وحيتها إن قفك السياسي قال الدوني السياسة دي إنه يستاهل إن أي سياسة دي كجشي هجانك أي كجشي مسؤولية دي إن لودي وكربه إنه ضلك عايو إنه دولة ماذا عبايو إنه محنكرة أمضى الصومالي مجا عيدا هوس أوديجو إنه كرر هذه السياسة هي محنكرة هجان يدرج إنه كرر ونسيب درتاس سياسة دلك يدلك أسوأ بندقو حر أياتها رأي السياسة oo dalka wax looga bedelayo oo dadka noloshooda wax looga bedelayo oo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ay leedahay meesha maanta ay joogto kor looga sii qaaday laakiin inta yarta ay haysato iyo hay'adaha iyo nidaamka yarka dawladnimada ay bariyaan ummadda Soomaaliyeed soo dhisatay ceebeyntooda ha ka raadinin inaad maxuu ahay mansab iyo maqaam iyo darajo aad ku gaarto dawladda xagashadeeda maxaan ku leeyahay hay'adaha dawladda xagashadooda ummadda Soomaaliyeed ceebeynteeda maalin walba hoos u sii dhigisteeda ummadda Soomaaliyeed maalin hal qof oo kor uga qaadi kara ma jiro aad uga ma qaadi kartid kuwa ka horeeyay uga ma qaado kuwa ka dambeeyana qof ummadda kaligeed meel ka qaadi kara suuwayna waxaan ka qabnaa qaabka doorashada loo wado in khilaafaad xoog badan ay keento oo mararka qaar gaari kara dil siyaasadaysan in waqti ku dhaca dalka Soomaaliyeed waxaan u baqaynaa cabsi weyn u qabnaa odayaasha dhaqan waxaan cabsi weyn u qabnaa dadka tartanka siyaasadda ku jira waxa waaye runtii amnigooda arrinta aad ugu walwalsanahay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayna ilaahay inuu noo fududeeyo maaragtay maxaad u jeedaa amnigooda waan ka walwalsanahay ma qorshayaal jira maada amnigooda waan ka walwalsanahay maxaa jira dalka amnigiisa ma sugna marka laga soo bilaabo dhaqameedyada iyo dadka xildhibaanada noqonaya u tartamaya iyo dadka madaxweynimada u tartamaya dhammaantood amnigooda khatar ayuu ku jiri karaa maxaa jira dalka amnigiisa waa xun yahay siyaasiyiinta saaxiibada waxaan leeyahay adiga isdaaweyn si aad dalka u daaweysid niyadsan qalbisan la imaawo adigu isboogadhay si aad dadka Soomaaliyeed aad doonaysid inaad siyaasi u noqoto hoggaanka u noqoto aad u boogadhaydo amaan afkaaga ka xiga Soomaalidu kuma maay jirtay wanaaga dalka inaan sheegnahay afkeena naga xigo ceebta dalka inaan anagu sheegin cadawgeena sheegay waa beentii inaan dhahnana laga raba waa runtii inaan dhahno horkacno durbaanka u tunaay sax ma aha dawladda Xasan Sheekh maalin aan gabar reer galbeeda aan dawladdan xumaanteera aan u sharaxay aniga si oo dadkaas inaynan ugu taageerin anigoo ku dadaalay ayaan waxaan iri waa corruptionista dawladda meeshaas markaan waday joogay tir ma ahani tiri ma ahan corruption lottery swaayid waa tuugay tiri والله بالله تلا أنا نبي وتوقيتي إذا كمان فهمتني corruption كوحبالك على جوستاهيتي ها corruption نك أنا بقول كنا دولار كود دراية ولا سوق أردي ثمانات كرهبة ثمانو كورهبة إلا خلده وكوبادا سجاشنا أساق على مدنا وحبات كهلي ما Soomaaliya waa dal dhaqaaqay hor u socday caalamkana hortiisa ku dhaqaaqay oo maanta adduunyadii oo dhan ay qirayso Soomaaliya inay dhaqaaqdo wiil Soomaaliya inuu jidka inta soo istaago u yiraahdo maya maanan dhaqaaqina carradan galgalanayna dhiiqadan ku dhex jirna xaggan ka dhacnay waan liidanaa waan xunnahay maya in dadka Soomaaliyeed saxaafadda xorta ah ee ummaddu ay ku faanayso maanta aanay dalal badan oo xor ah oo Afrika oo burbur iyo colaad aan Soomaali aanay lahayn oo ummadda Soomaaliyeed maanta loo isticmaalo muxuu ahaa in ummadda lagu karaamato sax ma aha saxaafaddana waxaan leeyahay walaalayaal qowlka fiican dhagta Soomaaliyeed wax fiican maqashiya indhaha Soomaaliyeedna wax fiican tusa ayaan leeyahay madaxweynaha waqtiga waa ka dhamaatay mana aan ogin qaab sharciyeed oo madaxweynuhu ku sii joogi karo kursi Xasan Sheekh way ka dhamaatay waqtigii dadka Soomaaliyeed ay ku jaangooyeen inaad maamusho dalka ama aad hogaamiso hadda waxaa la mid tahay musharaxiinta la mid inta kale musharaxaad la mid marka kursiga waad ka degaysaa markaad ka degto dadweynaha Soomaaliya dadka u dhaxaysay waad ka soo baxaysaa iyadana baabuurta bulad buruufyada inaguba ma haysano
meesha aan joogno meel ka xun lagu geyn maayo meeshaas baqayatiisa maanta markii ugu horreysay taariikhda waxaan ku faanaynaa in dowlad Soomaaliyeed oo la soo dhisay xilligeedii uu dhammaaday dowladdaasina ay dadaal u gashay sidii si nabad ah ay muxuu ahay dadka Soomaaliyeed ugu soo celin lahayd talada si ay ugu dhiibtaan dad kale oo ay ku kalsoon yihiin maxaan ku rahaa hoggaan iyo mandate cusub iyo xilli kale oo cusub oo dalka lagu soo hogaamiyo oo sharciyadiisa inay siiyaan dalka waxaan soo marnay waqti kooban oo dib u soo dhisidda iyo dowlad soo dhisiddu ay koobneed maanta way baahday waa ballaaran tahay dadka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa doorashooyinka si sax ah oo nadiif ah oo colaad ka fog oo musuqmaasuq ka fog oo ku shubasho ka fog oo maxaan ku iraahdaa dulmi iyo isriixriix maxaa ay ka fog haddii ummaddu ay u qabato ummadda Soomaaliyeed mustaqbal aad iyo aad u cad waxay ka gudbaysaa god weyn oo qaaran oo loo qoday ayay ka tilaabsanaysaa doorashada waa muhiim inay si sax u dhacdo waa muhiim inay sida ugu fiican ee aan awoodi karno ee aan u qurxin karno inaan isu doorano sax waay waana u dhacaysaa raalli kama ahin in qaab darro iyo xumaan iyo ceeb dalkan wax u keeni karo oo dhan in lagu dhaqaaqo dalku meeluu ka yimiday wuu socdaa meesha uu maanta marayna uu kasii gudbayaa ilaahay idankiisa runtii la safanaynaa shacabka Soomaaliyeed labadii maalin la soo dhaafay wadooyinkii laga xiray isbahaysiga isbedel sameynta ee musharaxiinta iyo madaxda xisbiyada siyaasadda iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed mukul ay ku jiraan waxaan u soo baxnay oo u soo soconnay oo banaanka u soo istaagnay oo daljika daahsan u nimid inaan la dareen la wadaagno shacabka Soomaaliyeed la safano wadooyinka xiran in loo furaan rabnaa marmarsiyo ma aha igad shirkeeda madaxweynaha ma ka aqbalayno ku marsiyooda igad shirkeeda xalaniya agtiisu ka dhacaya dadka wadooyinka ha loo furo haddii kale timir waxaa la yidhi lafaa ku jirta diidmadaas madaxweynaha wuxuu diidan yahay muddadiisii yaa dhammaatay mudaaharaadka uu diidan yahay dacwada aan maxkamad geyn uu diidan yahay inaan ka soo horjeesan uu diidan yahay dadka wadooyinka ha loo fur haddii ay isku dayaan madaxda dowladda inay wadooyinka xiraan waxaan ugu baaqaynaa shacabka inay wadooyinka furtaan dadka Soomaaliyeed ka codsaday maalin dhaweyd dulqaad arrinta ku saabsan shir goboleedka igaad ee madaxda igaad ay isugu imaanayaan magaalada Muqdisho waxaan mar kale dadka leeyahay arrintaasi aan soo dhaweyno dulqaad aan ka muujino aanan u dalqaadana cadawga Soomaaliya inuu kufiyo oo uu ceebeeyo doonayo yaanan gacan ku siinin aan ka hortagno aanan ka dhicino ka celino dalkeenu maanta in dadka Soomaalida ahay ay u soo istaageen taladii oo qof walba oo dadka Soomaaliyeed hoggaankiisa iyo taladiisa oo qayb dhexaad ka qaatay inuu rabo waan ku hambalyeeynaya dadka dhalinyarada ee siyaasiyiinta ah ee Soomaalida ee arrinta